أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waa luqmaan halkaad iga daawanaysaana waa luqmaan tiibka soo dhawow haddii aad nagu cusub tahay youtube-ka subscribe dhe wixii fikran nala wadaag sidoo kale page-ka soo follow garee maanta waxaan ka hadli doonaa ciid la yare allaha caafiye oo qalin galay soomaalida dhammaan iyo ummadda islaamkana ka soo codsaday inay usoo duceeyaan balan isla daawano marka hore video. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. waxaan salaamaha Soomaali maxamed oo salaama waxaan leeyahay mas'uuliyiin dadka ay garabsadeen waxay leeyahay ilaahay Soomaaliga ma qaado Soomaaliya ka dhashay oo ku faraxsanahay maanta hadda kulay adiga hadda khidib waxa waaye waxaan kala qalina kala insha Allah waxay leeyahay inta garabsiisay inta ay duceyso soo jiidayso فرحنا على صومال منطقة صومال الشيء واحد لا خير يصير هذا الدعوة ما كي ودن بيسوي منطقة واي ركوا حد إلى الوسطين هكذا هذا كل ذي أنا جعله أنا كلي نقدر نشتري المية تقدر نشتري ما شاء الله ركع هذا بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام على صومال محمد والسلامة waxaan leeyahay mas'uuliyiin ay garabsadeen kulli waxay leeyahay ilaahay Soomaaliga ma qaado Soomaaliya ka dhashay oo ku faraxsanahay maanta hadda kulay adiga hadda khidib waxa waaye waxaan kala qalina kala insha Allah waxay leeyahay inta garabsiisay inta ay duceyso soo jiidayso waxaan ku faraxsanahay Soomaali maanta صومال الشيء كل واحد لا خير يصير هذا الدعوة ما كي ودن بيسوي ما تواي ما قاعد إلى الوسطين هكذا هذا كل ذي أنا جعله أنا كلي نقدر نشتري المية تقدر نشتري ما شاء الله بركة هذا بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الله عافيه إلهي عوف ذي قلنك isagoo caafimaad qaban ilaahay carruurtiisa soo celiyo cid kastoo xanuunsanaysan allaha caafiyo isagana qalinkiisa loo fududay nin walba maalin buu duco u baahan yahay maanta ayuu duca inooga baahan yahay ha loo duceeyey ciid la yare allaha caafiyo intaan videoga xiga ku kulmayno dhammaantiinba amaana allah.